waayahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada mar labaad daawadayaal muuqaalka kani waxaan idinkula wadaagayaa ciladaha qaarkood waxyaabaha qaarkood caqabadaha qaarkood oo ina soo wajahaya markaaynu rabno xirfadeennii SQL injectionka inaynu ku samayno websaytyada qaarkood websaytyadaasoo ah iyagoo kuwo marka horeba u nugul in lagu sameeyo SQL injection ama lagu sameeyo attackan loo yaqaano SQL injectionka haddaba maxay yihiin ciladahaasi iminka saad arkaysaan web applicationkaygan securitygiisu ama DPWA securitygiisu waa low haddaba markaan rabo injection inaan ku sameeyo waxaynu tegi jirnay meeshan loo yaqaano ama boxkan loo yaqaano ayaynu ku qori jirnay wax loo yaqaano single code kadib markaynu gelino waxaynu arki jirnay sida normalka ah error ayaynu arki jirnay kaasoo inoo sheegaya waxa aynu gelinay ee loo yaqaano cotiskan aynu gelinay inaanu webpagekan laga ogolayn haddaba marka aynu xalay toola soo arkaynay muuqaalkan qaybtii ka horeysay waxa loo yaqaano blind SQL injection oo isagu ah halkuu ka hore kaa siiyey errorka halkuu kaa siiyey aan blind SQL injectionka loo yaqaano aanu ku siinin wax loo yaqaano error haddaba markaad ku soo noqoto SQL injectionkeena sida normalka ah waxaynu soo sameynaynay attacks fara badan oo aynu u isticmaali jirnay SQL wax loo yaqaano ama SQL injectionka attackska aynu sameynaynay waxaynu isticmaalaynay statements kala duwan statementskaasi mararka qaarkood waxaynu soo wajahaa caqabadeer marka caqabadahaas ayaan rabaa inaan muuqaalka kan aan idinkula wadaago caqabadahaasi maxay yihiin haddaba waxaynu hore u soo sameynay wax loo yaqaano union ayaynu hore u sameynay marka aynu rabno inaynu ogaano databaseka xalay muuqaalkii ka horreeyay waxaynu kusoo ogaanay web applicationkan databaseka oo isticmaalayo sidoo kale waxaan rabaa inaan haddaba idinku tuso iminka haddii aad isticmaasho isla commandkii aad isticmaalaynay muuqaaladii ka horeeyey ee ahaa marka aynu u baahannahay inaynu ogaano databaseka sidaynu ogsoonnahay databaseka markaynu ogaano waxaynu koleynu rabnaa inaynu ogaano iyadna imise table ayuu databasekaasi ka kooban yahay haddaba statementkan wuxuu ahaa statementkii noo suuro gelinayay inaynu ogaano databaseska uu ka kooban yahay databaseka aad soo ogaatay haddaba waxaynu lahayn ayaynu lahayn markaynu idhaahno dushan sare ee urlka haddaad u timaado oon idhaahdo single code diitana commandka ama statementka aan soo koobi garay aan halkaa ku baas gareeyo waxaan rabaa inaan ogaado statementka mar labaad hadidinku tuso union ayaan idhi waa select statement weeyaan table nameka waxaynu ogeyn inuu tablekan ama databasekan uu ka kooban yahay laba column iga tus formation schema tables where table schema uu la mid yahay databaseki aynu soo naqaanay muuqaalkii ka horeeyay aynu kusoo ogaanay ee loo yaqaano DPWA marka waxaan u baahanahay databasekan loo yaqaano DPWA mise table ayay leedahay percentage 23 waxaanu isticmaalaynay hash ahaan si intaa wixii ka dambeeya loogu akhriyo comment ahaan intan haddaba markaan intan idhaahdo urlkayga waxaan helayay dhammaan databaseska tablekaasi ama dhammaan waxaan helayay tableska la xidhiidha databaseka loo yaqaano DPWA oo waxaa ka mid a tableskaas admin ayaa ka mid a guestbook ayaa ka mid a sidoo kale waxaa ka mid a user ayaa ka mid a xasuusno wo securityga waxaan kasoo dhigay low ayaan kasoo dhigay haddaan kasoo dhigo securityga medium aan sidoo kale submit aan idhaahdo aan kusoo noqdo SQL injectionka dabadeeto aan idhaahdo isla processkii markii hore aan sameeyey halkan single code aan soo geliyo aan idhaahdo pass commandkaygii ama statementkaygii aan soo koobi gareeyo intan mar labaad aan ku soo celiyo anigoo gelinaya statementkii marka hore inoo soo saaray tableska hadda statementkani waxa uu sheegayaa markaan securityga DPWA aan ka soo dhigo medium inuu statementkan uu khaldan yahay sababta uu inoogu soo saaraya wax kale maaha web applicationku marka aynu medium aynu ka dhigno securitygiisa wuxuu isticmaalayaa codes ka duwan codadkii hore taasoo statementka loo noqonayo ama serverku u akhrinayo inay wax ka qaldan yihiin waxyaabaha ka qaldan waxaa ka mid ah wuxuu diidayaa wax loo yaqaano single codeka aynu isticmaalnay ayuu diidayaa oo uu leeyahay ama ma aqoonsanayo wax kasta oo ka dambeeya single codekaas haddaba saynu u baas garayn karnaa ama securitygaasi ama qaabkaasi wax filter garaynaya ee statementka aynu gelino filter garaynaya ee wixii aan sax ahayn oo dhan ka saaraya qaabka ayaynu u baari karnaa ama qaabka ayaynu u dhaafi karnaa waxaynu u dhaafi karnaa xirfadaasi inagoo isticmaalna wax loo yaqaano babsuiteka already waa soo rangareeyey
hore ayaynu website-ka u aragnay inagoo markii hore isticmaalnay proxy-ga imika waxaan rabnaa inaanu isticmaalo decoderka waa decoderkaan u isticmaalaya decoderka waxaan u isticmaalayaa maadaama uu leeyahay statementkaygan wixii ka dambeeya dpwa ama wixii ka dambeeya where table schema equal markaan idhaahdo wax kastoo halkaa ka dambeeya ee single codekaasi ugu horeyso maadaama uu leeyahay ma aqoonsan karo oo web applicationku diiday waxaynu u bedelaynaa http decoderkii ayaynu u bedelaynaa inagoo isticmaalaynaa wax loo yaqaano babsuidka hasaan hore u aragnay hash ayaynu isticmaali jirnay decoderka waxyaabaha faa'iidada u leeyahay waxaa ka mid ah tegaskan aynu qoraynay ama waxaan tegaskan loo yaqaano haddii loo bedelo http decoderkii haddii loo bedelo ama waxaa loo isticmaalaa in loo bedelo tegaskyada caadiga ee normalka in loo bedelo http decoderkii tusaale ahaan waxaynu markii hore isticmaali jirnay wax loo yaqaano hash wax loo yaqaano percentage waxaan ka wadaa percentage iyo 23 inagoo u isticmaalaynaa xarafka loo yaqaano ama special characterka loo yaqaano hash halkan aan ku tijaabino haddaba bal hadda waxaan ka wado muuqaalkeena haddii aan geliyo hash halka hoose waxaad ku arkaysaa haddii aan u bedelo decode aan idhaahdo as url waxaad arkaysaa percentage 23 xarafkaasi http encodingka waxaa loo isticmaalaa percentage 23 sidoo kale inaguna waxaynu rabnaa inaynu u bedelno dpwa waxaynu rabnaa inaynu u bedelno wax loo yaqaano hex ayaynu u bedelaynaa dpwa ayaan geliyey sidoo kale halkan ayaan imanayaa decode as ayaa waxaan leeyahay hex igu bedel ayaan leeyahay deetano hexkan ayaan qaadanayaa halkan saad ku arkayso d64 ayaa loo isticmaalaa ama ay u taagan tahay p76 haddaan haddaba nambarkan aan qaato oo ku bedelo meeshii uu markii hore erarka iga soo saarayey ee ahayd wixii ka dambeeya where table schema uu la mid yahay single codeka wixii ka dambeeya haddaan intaasi aan ku bedelo bal hadda waxaa dhaca aynu aragna hadda codkan ayaan inoogu soo koobay oon u isticmaalaynaa saad arkaysaan waxaan u bedelayaa halkan ay ku qoran tahay dpwa ayaa waxaan u bedelayaa nambarkan aynu halkan kusoo aragnay nambarkan aynu halkan kusoo aragnay 64 76 77 61 oo afartaa xaraf ayaa nambariskan u taagan soo nambariskaas ayaan kusoo bedelayaa waxaan leeyahay nambariskii waa kuwan 64 76 77 iyo 61 ayaan leeyahay waxaan masaxayaa wax kasta oo single codeka u dhexeeya deeto bas ayaan leeyahay bas markaan idhaahdo marka hex la isticmaalayo waxaa laga horeysiiyaa 0 iyo x ayaa laga horeysiiyaa 0 iyo x kaasna waa ku darayaa deeto 0 x ka markaan ku daro isla command-kaygan ayaan soo copy garaynayaa command-kaygan markaan soo copy gareeyo ilaa percentage 23 waxaan ku eegayaa url-ka ayaan ku eegayaa url-ka ayaan waxaan leeyahay wax kasta oo weer ka dambeeya igu bedel intaa aan soo copy gareeyey waxaan leeyahay halkaa dpwa ay ku qoran tahay ilaa iyo union iga masax waxaad igu baas garaysaa intaan imika soo copy gareeyey command-kaan check garayno deetana aan idhaahdo inter weli error baa jira errorku wax kale maaha halkaa waxa iga raacay single codekaana han ka saaro deeto inter aan idhaahdo yes waxaad arkaysaa sidii markii hore security-ga web application-kan markuu lowga ahaa resultiga weyna siinaya result lamida ayuu siinayaa haddana saad muuqaalka ama hadda ka arkayso shaashadan hortaada taada marka waa xirfad kale ama waa qaab kale oo aynu ku dhaafi karno ama la xidhiidha SQL injectionka markaad injectionkaaga aad samaynayso weliba aad rabto wax la xidhiidha ama aad isticmaalayso where condition sidoo kale aad u baahato inaad magac isticmaasho hadduu serverku kaa diido single codekan waxaad u bedeli kartaa magaca aad haysato hex ayaad u bedeli kartaa ama hexadecimalka ayaad u bedeli kartaa deeto serverku markaasi wixii filter garaynayay waxaa dhici karta inuu ku configureebo oo sida uu halkan resultiga inoogu soo saaray oo adigana markaa resultiga kugu soo saaro xasuusno oo security-guna waxa weeyaan medium weeyaan maaha low haddaynu ka dhigno uma baahnin inaynu hex iyo waxaa lamida aynu u bedelno laakiin haddaan ka dhigo medium markaa wuxuu diidayaa wax loo yaqaano single codeka intaas ayaan kusoo koobayaa muuqaalka haddaad daawatay waxaan ku xasuusin lahaa inaad channelka haddaanaad kusoo biirin aad kusoo biirto sidoo kale videoga kani aad like saarto taasoo inaga dhiirigelin doonta inaynu xirfadan waxyaabo fara badan ama macluumaad fara badan aan idinkala wadaago xirfadaheennana aynu kusii kordhino aad baan idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu